magaalada Laascaanood waxaa ku soo duulay urur la mid ah ururka Al-Shabaab oo shaati dawladeed soo xidhay waxaana kugu daliila madaxweynihii dhannaa ee deegaankaasi xukumay oo sheegay dadkii la laayay ee lagu xasuuqay magaalada Laascaanood ee makhraatiga lahaa ee la arkaya askartiisa tuutaha qabta ee xabadda la dhacaysa in maanta uu sheegay in dadkaasi ay xasuuqeen argagixisaduna micnaheedu waxa weeye waxa uurkaada ku jira ayuu afkaadu xadaaye waa ciidamadiisa iyo isaga ayaa argagixisaa waxaana taa dhab noqonaysa eedaymihii horey baa loogu jeedinayay maamulka Somaliland in ay faangareeyaan ururka Al-Shabaab intaag ugu horreyn ku soo dhawow barnaamijka bal maxaa u dambeeyay xaaladihii u dambeeyay magaalada Laascaanood aad iyo aad baad horta u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeedna waan salaamaynaa meel walba joogtaba magaalada Laascaanood wali waxaa ka sii socda gaboodfalladii foosha xumaa ee ciidamada Somaliland ay geysanayeen walow ciidamadu aysan sidii hore xaaladdu aysan ahayn oo cabsi ay gashay maamulka madaxweyne Muuse Biixi maadaama dhinaca Puntland ay ciidamo ku soo daadgureynayaan xuduudda goboladan ay la wadaagto Puntland dhinaca kalena dowladda federaalku ay ta'kiidisay go'aankii madaxweyne Saciid Dani uu qaatay ahaa in loo la garab istaago shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dhinaca kaleeto odayaasha dhaqanka iyo waliba waxgaradka aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolada saddexda ee horey ku soo sheegnay waxa ayagana ay soo saareen go'aan culus oo lagu wajahayo ciidamada beesha Isaaq ee markaasi ku sugan goboladaasi ee dadka xasuuqayay maalmihii ugu dambeysayba dhinaca kaleeto ilaysow sidaad ogtahayba Somaliland waxaa dhinaca kale ay rabtaa in ay culays ka saarto oo eedeymaha dhan ay dusha ka saarto dadka koonfurta ka soo jeeda maalmihii ugu dambeeyayna dad aad u tiro badan ayaa xabsiyada la geeyay oo ciidamada Somaliland ay dawaan gelinayaan oo ay rabaan in ay eedda dusha ka saaraan oo ay markaasi ku kala jabiyaan shacabka walaalaha ee wada degan gobolada Sool Sanaag iyo waliba Cayn dhinaca kaleetana ay doonayaan in ay xasuuqa iyo waliba cadifadii markii hore ka buuxday xiisadani ay u kiciyeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay markaasi ay xoojiyaan oo dadkaasi la xasuuqo oo waxyeeleynta shacabka Soomaaliyeed ay sii kordhiyaan ciidamada ka amar qaata madaxweyne Muuse Biixi dhanka kale khudbad maanta uu jeediyay madaxweyne Muuse Biixi oo uu kaga jawaabahayay hadalkii go'aankii shalay ka soo baxay Saciid Dani madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in dagaal walba oo lagu soo qaado ay iska difaacdo isaga oo xiisadda iyaguba ay kiciyaan isla markaana uu la jeedo goboladan Puntland ay sheegayso in iyaga leedahay ciidamada Somaliland ay ku sugan yihiin Saciid Dani iyo maamulkiisu ay go'aansadeen in gacanta Puntland dib loogu soo celiyo iyo federaalka shacabku ay doonayaan in la hoos keeno oo gacanta dowladda federaalka dib loogu soo celiyo gobolada Somaliland sida fooshuxun ay ula dhaqmayaan dhanka kale khudbadiisa waxa uu ku daray madaxweyne Muuse Biixi xilligii uu hadlayay toosh ayuu dhinaca kale ku ifiyay siyaasiga caanka ee Farax Dawaara xildhibaan Farax Dawaara oo dalka Kenya xildhibaanka ah si weyn looga yaqaan ogayiga Soomaaliyeed oo asagana maalin ka hor cadeeyay dhacdooyinkii xumaa ee soo maray Somaliland ee ay sameysay ciidamadooda lagu sameeyay shacabka koonfureed ama shacabka Soomaaliyeed wuxuu dhinacaasi uu sheegay in Farax Macalin uu ahaa shakhsi aad u garab taagan Somaliland isla markaana taageero weyn iyo wax qabad weynba 30 sano ee la soo dhaafay u muujiyay balse waxyaabaha wuxuu yiri weerarka hadda uu nagu qaaday ma garanayo wax ku kalifay iyadoo markaasi weyne Muuse Biixi uu ka gaabsaday waxyaabaha Farax Macalin uu banaanka keenay uu ka hadlay oo ahaa in Somaliland ay xasuuq iyo gaboodfallo ay ka geysato goboladan saddexda ee hadda muranka dhaliyay ee xiisadda xoogan ay ka taagan tahay ee dadka lagu xasuuqay dhinaca kalena ay beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed Farax Macalin shalay markuu hadlay wuxuu sheegay waxyaabihii uu u qabtay Somaliland sida uu u garab taagnaa iyo sida iyagana Soomaaliyeed nacaybka maamulkoodu ay uga buuxdo isagoo waliba sheegay in shacabka Somaliland aysan la qabin amaradan guracan ee ciidamada Somaliland ay iyo waliba maamulku ay bixinayaan ee ciidamada lagu amrayo in shacabka ay xasuuqaan inta aanan u gelin khudbadda Muuse Biixi ugu horreyn dadka waxay aad u dhaliilayaan Muuse Biixi inuusan ka hadlin muddadii 9 bari ahayd xasuuqii iyo dhibaatadii ay ciidamadu u geysteen reer Laascaanood balse marka uu Dani hadlay isla markiiba inuu warbaahinta iskugu yeeray
isla markaana uu dani u jawaabay arrintan maxaa loo fasirin karaa bay kula tahay hadde muxuu horta ka jawaabay ciidamadan horta waxay ka amar qaataan madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo horta ciidamada ka amar qaataan si toos ayay uga amar qaataan cid walba oo markaasi ka aragta duwan ayaana loo adeegsadaa waad ogeyd xildhibaanadii reer somalilan ee golaha wakiilada ka midka ahaa xiliyadii ay ka hadleen dhacdooyin magaalada hargeysa ka dhacay dibadbaxyadii xisbiyada mucaaradka oo xilliga ay mudaharaadayeen ee 10 qof lagu dilay markii ay ka dhidhiyeen oo ay ka hadleen in iyaga naftirkooda dhibaato loo geystay ajenda naftirkeeda xeer hoosaadu la xalinayay oo madaxweyne muuse biixi uu keensaday oo golaha guurtiga iyadana la horgeeyey xilli iyadana ay ka hor imaadeen waad ogeyd xildhibaanada in xabsiga loo taxaabay meesha marka xurmo iyo ka hadal horta ma taalo madaxweyne muuse biixi wax walba oo markaasi uu arko in ay lid ku tahay isaga joogitaankiisa iyo waxa weeye ciidamadiisa amar ayuu ku bixinayaa in ciidamada sidii eygii markaasi u adeegsado ciidamadan waxa ay ka amar qaataan isaga ayaana amarka bixiya lagu xasuuqay shacabka magaalada Laascaanood xukuumaddiisa iyo isagana waxay iska raacsan yihiin in shacabka Soomaaliyeed ee beesha isaaq aan ahayn la xasuuqo oo la laayo oo la barakiciyo waa go'aan ay ka wada midaysan yihiin weeye marka isagaaba barakiciye muxuu ka hadlayaa horta muxuu keenayaa si uu uga hadlo uma ooleen cid walba markaasi ka hadasho xasuuqani oo ka dhidhida dhibaatadani oo ka danqata muslimnimada iyo dadka muslimiinta ee walaalaha Soomaaliyeed ee la dhibaateeyay ee magaaladoodii lagu dhex tooganayo ee bartamaha magaalada maskaxdooda ay daadsan tahay maanta ee qoys walba oo maanta gobolka Sool ka tirsan ay tacsi u taalo cidii ka hadasho isagu u jawaabaya oo jawaab u haya dhanka kale madaxweyne muuse biixi khudbadiisa waxaa ku jirtay in ninkii lagu dilay magaalada Laascaanood ay ka bilowdeen rabshadahan in ay dishay argagixisada isaga oo dadkii dhammaan la laayay ama lagu dilay magaalada Laascaanood sheegay inay argagixisada ku dishay haddaba argagixisada uu madaxweynaha sheegay waatee muuse biixi argagixisadu de waa isaga ta uu maalgeliyo argagixiso kale ma jirto argagixisada saad ogtahayba ururka al-shabaab ayaa argagixiso loo yaqaano gudaha dalka Soomaaliya jooga mana joogaan deegaanada Somaliland ka taliyaan Somaliland sidaad ogtahayba waxaa socota baaritaan in maamulka Somaliland iyagu ay maalgeliyaan ururka al-shabaab ee koonfurta Soomaaliya ka dagaalamaya marka argagixiso kale oo hadda uu yaqaano madaxweyne muuse biixi uu u yaqaano ururka al-shabaab argagixiso uma yaqaano macnaha wuxuu ka wadaa un afkoon baa ka xaday ciidamadiisa ayaa dileen marka argagixiso kale oo Sool iyo Sanaag cayn joogta horta ma jirto ciidamada Somaliland ayaa ku sugan maamul kale kama taliyo shacabku hub ma wataan iyagu isma laayaan hal beel ayaa degan oo walaalaha ayaa degan marka argagixisada tishaydee carabka ayaa ka xaday oo waxa weeye waxa qalbigaada ku jiro afkaadu xadaa weeye marka ciidamadiisa ayaa argagixisa oo dileen markaas aan baan u qaadanayna hagaag bal xaalka magaalada Laascaanood caawa waa sidoo kale khudbada u jeediyay muuse biixi sidee u saameysay dadka magaalada Laascaanood horta magaalada Laascaanood caawa xalayto weerarkii ay qaadeen ciidamadii maleeshiyaadka ee ka gadooday dhibaatadii ciidamada booliska Somaliland ay ka geysanayeen 10kii maalin ee ugu dambeysay magaalada Laascaanood waxaad moodaa in ciidamada Somaliland ay isku ururiyeen saldhigyadooda oo markaasi ay difaac halkaasi ka galeen maadaama ay ogaadeen shacabku inay ka taagan tahay meeshii ugu dambeysay ayna doonayaan in ay iska dhiciyaan marka arintii qorshaysnayd ee magaalada Hargeysa laga soo abaabulay madaxtooyada muuse biixi laga soo abaabulay waxaad moodaa horta inay fashilantay oo hadda ciidamadu ay iyaga rabaan inay naftooda u difaacaan waad ogeyd xalayta wasiir kaahin oo ku sugnaa magaalada Laascaanood wixii ka dhacay waad ogeyd intii weerarkii intii lagu qaaday saldhiggii weynaa ee ciidamadu ay ku lahaayeen magaalada Laascaanood gaar ahaan xaafadda Durdur ay ku lahaayeen ayaa waxa weeye hooyay ducee qariba ka dhacday marka waana dhalinyaro yar oo gadooday oo halkaasi iska abaabulay ayaa arintaasi horta sameeyay taasi markaan ka soo laabto khudbadii muuse biixi waxa uu weeyaan meel boog ah oo qori lagaga sii muday unbay u tahay shacabka reer Sool wax bogsiya iyo wax caafimaada iyo wax garasha iyo wax ay u tahay oo ay ka garaabayaan oo arintan maanta ay ka bogsiinaysa ama khudbadooda ay wax ka bedelayso ma jiraan gobolka Sool Sanaag cayn hal qoys ayaa dega walaalo ayaa dega beel baa degta beesha degtana beel kale ma gumaysan karto intii ay soo dul qaadan kareen waa dad gob ah horta muddo badan bay u dul qaadanayeen dilalka qorsheysan ee laga soo abaabulayo madaxtooyada Somaliland muddo badan ay shacabka u adkeysanayeen balse hadda waxa ay ka mid wada midaysan yihiin sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen dadka ay walaalaha u maleeyeen ee ay damceen inay wax ku darsadaan ay soo dhaweysteen ee cadowga dib ugu noqdo waa tahay waxaan ogeyn in madaxweynaha maamulka Puntland uu ku dhawaaqay inay jawaab adag ka bixin doonaan xasuuqa waxa uu ku tilmaamay ka socda magaalada Laascaanood haddaba xaggee ku dambeeyay abaabulka ay wadeen
horta sidaad ogtahay baa abaabulka puntland waa mid laga wada midaysan yahay waxgaradka aqoon-yahanka mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan in la garab istaago shacabka reer sool cidna ma ogolaanayso in beel intay soo duusho beel kale iska xasuuqdo oo waxay doonto ka samaysato oo shaati dowlad usoo xirato cid ogolaanaysa ma laha damiirka musliminimada iyo weliba maskixiyanba wax ogolaanayo horta ma jiraan marka arrintan deni uu ku dhawaaqay waa arrin ay wataan siyaasiyiinta soomaaliyeed aqoon-yahanka soomaaliyeed oo la doonayo in xaqa la caddeeyo oo la garab istaaga shacabkaasi oo somalilan la tuso bal iyada iyo tabarteeda in la tuso horta arrin la rabay weye waad ogeed maanta guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka in uu ku dhawaaqay oo guddi 10 xubnood ka kooban oo uu sheegay inay tegayaan magaalada laasacaanood oo xasuuqii iyo gaboodfalladii halkaasi maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay in lasoo xaqiijiyo qaabkay u dhaceen waxay ku bilowdeen sababta ka dambaysa ee ciidamadaasi ay u xasuuqeen waad ogeed iyadana marka abaabulka koonfurta ka soo socda puntland ay wado iyo midka ay wado magaalada muqdisho ka socda madaxda ugu sarreeya ee mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay shacabka sool iyo sanaag iyo guud ahaanba dalka soomaaliyeed ay wadaan waa mid la doonayo in aan lagu xadgudbin cidna cid kaleete cid ku xadgudubtana lagula xisaabtamo oo markaasi tallaabada ku habboon markaasi laga qaado marka abaabulkii puntland ciidamadeedu heegan ayaa la geliyey dowladda federaalku waxay doonaysaase in guddigani ay ka hor dhacaan inta aan dagaal puntland aysan ku qaadin ciidamadeeda magaalada laascaanood guddigan ay baarlamaanku magacaabeen goormo ayay tegayaan laascaanood maxaase laga rabaa in ay keenaan guddigan horta dee ururka al-shabaab baa horta haysta magaalada laascaanood sidaad ogtahayba maadaama ururku uu meesha ku sugan yahay urur meeluu haysto guddi ma iska imaan karaan diyaarad intay soo qaataan ma imaan karaan marka waa in horta dagaal lagu qaado oo hilfaha loo qaado kadib markii ay ogaadaanna weeye guddigan waa in ay baaritaan horta sameeyaan iyagoon baan imaaninba dadku waa walaalo lambaraa la kala haystaa odayaashii dhaqanka lambaradooda la haystaa siyaasiyiintii ku matalaysay ee gobolka sool ee xildhibaano lahaa ee wasiire lahaa ee ku-xigeenno lahaa ayaa magaalada muqdisho jooga markay nimankaasi ay waraystaan ku matalaya dowladda federaalka goboladaasi la waraysto oo xaaladda la ogaado ayaa guddigan iyo ciidamada puntland iyo kuwa militariga soomaaliya ay go-aan markaa midaysan laga qaadan karaa in lagu duulayo iyo inaan lagu duulaynin haddii dhacdadani markaas ay ahayd dhacdo shakhsiyaad ay geysteen oo somalilanna ay ka garowdo oo tallaabo sharci ay ka qaado oo maamulkan hadda argagixisada ee magaalada hargeysa ka taliya ay tallaabo qaadaan dee dowladda federaalku iyadu dagaal kuma qaadayso meesha dee dagaal haddii lagu soo qaado shacabka ku sugnaabaa dhammaanaya oo dee xabad meel ay ka dhacday labada dhinacba waa laysku dhammaan dowladduna ma doonaysa in laysku dhammaado ilaa iyo xilliga awood looga helo in somalilan oo dhan maamulkan guracan laga dulqaada sida shabaab hadda dagaal lagula jirana dagaal dowladdu markaas kuma qaadayso haddii ay ahayd wax badheera oo ciidamada somalilan ay geysteen oo madaxweyne muuse biixi uu raalli ka ahaa ay noqoto dilalkii magaalada laascaanood ka dhacayna dee dowladda federaalku sida ururka al-shabaab ay dagaalka ugu go-aansatay dagaalkeeda ayaa dagaal lagu qaadaya magaalada laascaanood iyo ururka ku sugan ee dhibaatada geystay aad iyo aad baad umahadsan tahay daawadayaal intaasaan kusoo koobaynaa barnaamij koobna aynu ku falanqeynayna xaaladihii u dambeeyey ee xiisada ka taagan magaalada laascaanood wixii kasoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe balse tan kiisa xiga inta halkan kulmi doono waxaan ka teganaa sidaasi nabadgelyo